walaal soo dhawow meeshaan waxa la lahaa Puntland Aviation College. First of all, we have to understand the meaning of airport. So it's one of the main important area of an magacaygu waa Xaawo Cilmi Nuur waxaan ka mid ahay arday dhigata Puntland Aviation College. waa xirfad aan horey uga jirin deegaanada Puntland waan rabnaa hadda dhalinyarada reer Puntland inay ku baraarugaan suuqa shaqadana macna badan ka goynaysa Bismillahirrahmanirrahim. Halkani waa Puntland Aviation College. Waa college ugu horeeyay ee cilmiga duulimaadka rayidka ee Puntland laga furo. Caasimadda Puntland ee Garowe. College-ka waxaa la furay 1 bisha Abriil 2022. College-ku waxa uu bixiyaa aviation courses ka kala ah airport operation iyo flight dispatch control. Koorsooyinku waa diploma hal sano ah. Waxay iskugu jiraan koorsooyinka theory iyo practical. Ardayga wixii waxbarasho wuxuu ku qaadanayaa college-ka. Wixii practical garoomada Puntland ayuu ku qaadanayaa. Ardaydu waxaan sameeynaa education trip balasiya marka koowaad observation bay soo sameeyaan wixii meesha lagu baray in ay soo arkaan waa xirfad aan horey uga jirin deegaanada Puntland waan rabnaa hadda dhalinyarada reer Puntland inay ku baraarugaan suuqa shaqadana macna badan ka goynaysa maadaama xirfadaas hadda ay tahay xirfad dadku aysan in badan aysan baran waqti badan qofka aysan ka qaadanayn xirfaduna waxay ku fiican tahay qofku marka uu barto hore uga shaqo galiya ardadii ugu horeysay ee dafcadii koowaad ee Puntland Aviation College ayaan hadda qalin jibinteedii u diyaar garoobeynaa sanadka hadda 2023 dafcadda ayadana waa bilownay way socotaa ardayda is diiwaan gelisay dhammaan ardayda rabta xirfadaas inay barato college-ku gacmo furan buu ku soo dhaweynayaa college-ku waxa kale oo ka baxa koorsooyin English ah oo intensive course ah oo ay dhigaan macallimiin ajaanib ah iyo Soomaali iskugu jirto ardaygana laga dhisayo speaking waxa ugu muhiimsan oo luqadda loo barto waxa weeye qofku inuu adeegsado luqadii ama uu ku hadlo insha Allah waxaan rajaynaynaa dadka luqadda Englishka muddo baranayay haddana hadafkii ay lahaayeen aan weli gaarin in cabashadaas uu ka jawaabiyo college-ka walaal soo dhawow meeshaan waxa la lahaa Puntland Aviation College waxa la dhigtaa aviationka iyo luqadda Englishka qaybtee waa baahantay maxaa iska caawinaa Anuga walaal aad u mahadsantahay sida isoo dhameysay waxaan coursiga Englishka luqadda Englishka waxa ka rabaa xog inaga siisay coursigaas insha Allah. Okay walaal mar labaad waxaan soo dhawow xilligu waa hal sano waxa xiisada lagu jiraa 2 saac waxa koorsada dhigaya 2 macallin oo kala ah macallin ajnabiya iyo macallin Soomaaliya Englishka koorsada waa ardayda waxa laga dhisayaa ku hadalka luqadda Englishka xilliga la dhigatana waa subaxdii habeenkii iyo galabtii koorsada ardayda marka uu dhamaado wuxuu helayaa ardaygu diploma shahaado diploma ah oo hal sano wuxuu bixinaa dheeraadana waxaad ka akhrisan kartaa warqadda Bismillahirrahmanirrahim. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka taas oo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Xaawo Cilmi Nuur waxaan ka mid ahay arday dhigata Puntland Aviation College waxaan ahay ardayda sanadkan ku soo biirtay dufcadda saddexaad
waxaan college-ka ka bartaa maadada aviation-ka airport ama airport operation-ka waxay u kala baxdaa college-kan theory iyo practical. Theory-ga waa college-ka wixii laga dhigo, practical-ka waa wixii lagu qaadanayo airport-ka. waxaan ugu baaqayaa bahda waxbarashada jecel in ay college-kan ku soo biiraan. Alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magacaygu waa Cabdullaahi Saciid Khaliif, dhigta Puntland Aviation College, gaar ahaan kulliyadda Airport Operation. Kulliyadda Airport Operation waa habka shaqada airport-ka. Kulliyadda waxaa ku dhigtaa laba syllabus weeye. Syllabuska koowaad waa ICAO syllabus oo ah 8 departmenti. Departmentiga koowaad waa flight planning ama qorsheynta duulimaadka. Midka xiga waa meteorology. Meteorology waa saadaasha hawada. Kan saddexaad waa emergency planning, qorsheynta degdega ah, radio communication, xiriirka raadiyaha, iyo airfield operation, howlgalka garoonka diyaaradaha, apron operation, shaqada apronka, iyo ALO or aviation law, sharciga hawada. IATA syllabus waa 7 models. Modelka koowaad waxa weeye understanding the airport. Kan xiga waxa weeye model 2 waxa weeye airport as an operational system. Kan saddexaad waxa weeye safety. Kan afraad waxa weeye security. Kan shanaad waxa weeye security. Kan shanaad waxa weeye support services. Kan lixaad waxa weeye airport issue and challenges. Kan toddobaadna waxa weeye future of airport. Syllabuska koowaad ee ICAO syllabus waa dhameynay. Diplomadii half semester baa dhameynay, semesterka labaadna waa wadnaa. Maadooyinka ahan practical iyo waxa loo kala saaraa theory. Maadooyinka theory-ga waxaa kamid ah meteorology, aviation law ama ALO, iyo airfield operation iyo aircraft general knowledge. Maadooyinka theory iyo practical iskugu jirana waxa weeye apron operation, emergency planning, flight planning, iyo radio telecommunication. aad baa mahadsantahay. Aniga magacaygu yahay Maxamed Cabdikariin Maxamed oo dhigta college-ka Puntland Aviation College. Puntland Aviation College gaar ahaan airport operation kana mid ah ardaydii ugu horeysay ee bilowday college-ka markii laga furayay Puntland waxaan ka mid ahaa ardaydii ugu horeysay ee ku biiday. Ardaydaas oo ku biirtay college-kaas baan ka mid ahaa. waxyaalaha aan hadda ka fahmay ama ka bartay college-kan markii hore aviation-ka wax interview ama wax aragti kama haysan, laakiin hadda oo aan dhigto oo kamid ahay ardayda ugu horeysay ee syllabus ugu horeysay dhameysay oo bilaabayna qaybtii dambe 6 bilood dambe syllabus dambe qaybtii dambe IATA ardayda bilaabay aan kamid ahay. waxaan ka fahmay waxyaalaha badan aan ka fahmay waxaan kamid ah inaan markii hore aan ka fahamsanin aviation-ka, hadda laakiin aan leeyahay han weyn, hankaas oo ku saleysan inaan macnaha hadaf weyn ka leeyahay aviation-ka, sidaas oo ay ku soo ururtay inaan aragti fog ka yeesho. aragtida fogna waxa sababay waxyaalaha kamid ah waxa weeye inaan macnaha sii dhexgalay aviation-kii. aviation-kan ama college-ka Puntland Aviation wuxuu bixiyaa koorsooyin badan. koorsooyinka bixiyana waxa kamid ah airport operation, waxa kamid ah flights, waxa kamid ah air ticket and reservation, sida loo ilaaliyo ticketyada markii la jaro ama reservation-kooda sida loo ilaaliyo. qofka caqabad ku timaada inta ticket u jarnayo kale qofka marka hadhow dib ticketkiisa siinaysa asagoo waxba caqabada ku dhicin ama ka khasaarin ticketka. sidoo kale waxa kamid ah aircraft marshalling, diyaaradaha inay soo hagtay diyaaradda markay soo degato kale qofka soo hagaya oo ku soo hagaya baakinki ay geli lahayd. sidoo kale waxa kamid ah fire fighting oo ah la dagaalanka dabka ardayga qof inaad noqotid tababar buuxa u haysta inaad qabatid shaqada fire fighting-ka. marka ardayda dhammaan danaynaysa inay ku soo biiraan Puntland Aviation waxaan ugu baaqayaa inay naga soo mid noqdaan. college-kana waa college-keeni wuxuu idin soo dhaweynayaa si ballaaran. Assalaamu calaykum.